iyadoo ay dad badan la yaabeen ninkan qisadiisa iyo muuqaalkiisa. Sawirqaado u shaqeeya warbaahinada caalamka mid ka mid ah ayaa ku booqday hooyigiisa si uu documentary uga soo diyaariyo. Sawirqaadihii ayaa goobta kula kulmay arrin aad uga nixisay. Kolkii uu guriga u soo galay ayuu wuxuu arkay nin timuhu dhulka u daadsan yihiin ilaa bannaanka qolka. Ninkan ayaa waxaa madaxa ka asiibay xanuun isagoo jira da'da 25 sano. Kadibna wuxuu iska xiray madaxa. Madaxii ayaa aad u sii xanuunay. Ninkan ayaa xilligaas wixii ka dambeeyay go'aansaday inuusan timihiisa dambe iska jarin. 50 sano kadib timihiisa ayaa waxay dhaafeen lugihiisa 22 feet. Culayskooduna waxay noqdeen 23 pounds. Ninkan ayaa markii la weydiiyay waxa ku kalifay arrintan ayaa wax uu ku jawaabay xanuun madaxa iga asiibay dartiis ayaa igu kaliftay inaan timahayga mar dambe jarin. Taran Van Hay ayaa loo aqoonsaday ninka ugu timaha dheer caalamka. Ninkan ayaa waxa uu u dhashay dalka Vietnam wuxuuna dhashay sanadu markay ahayd 1936. Taran Van Hay ayaa geeriyooday sanadii 2010 isagoo jira da'da 79 sano. Dadkiisii ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin naxariis badan oo deeqsi ah, dadkana caawin jiray, wuxuuna dadka ku daweyn jiray dawooyinka heerbalka. Shakhsiga labaad ee muuqaalkeena maanta waa Yu Shan Huan, waa nin u dhashay dalkaasi China. Ninkan ayaa muuqaalkiisu ka duwan yahay dadka kale muuqaalkooda. 96% ninkan jirkiisa waxaa ku daboolan timo aad u fara badan. Ninkan ayaa wuxuu dareemayaa raaxo la'aan, isagoo sheegay goorta uu jidka marayo inay dadku ku maadeystaan. Iyagoo la yaaban qaabka uu eeg yahay muuqaalkiisa. Yu Shan Huan waxaa asiibay cudur ku dhaca dadka si naadir ah oo aan fara badnayn. Cudurkan ayaa magaciisa waxaa la yiraahdaa hypertrichosis, kaas oo keena koritaanka timaha qofka. Waana cudur dhif iyo naadir ah. Yu Shan Huan ayaa yiri anigu waan ku faraxsanahay qaabka aan u ekahay. Waana cajiib, qof ani ila mid ma jiro dunidan, balse dadka qaar ayaa noloshaada ku ogoleen wax yar oo nafis ah xitaa. Sababtoo ah dadkaasi waa dadka ku nool nolosha beenta ah, naftadoodana aan ku kalsoonayn, laakiin waan ku faraxsanahay noloshayda. Ninkan ayaa waxa uu leeyahay gabar ay isjecel yihiin, wuxuuna abuuray website uu ku soo bandhigo sawiradiisa si uu u noqdo qof caan ah oo dunida laga wada yaqaan. Wuxuuna jecel yahay inuu noqdo dadkan heesaaga ah ee la yiraahdo rock star. Shakhsiga saddexaad ee aan muuqaalkeena ku soo qaadan doono waa Ekaterina Lizina. Gabadhan ayaa waxaa loo aqoonsaday gabadha ugu lugaha dheer dunida markay ka soo muuqatay barnaamij la yiraahdo Morning of Hollywood oo lagu wareysto dadka jilaaga ah. Gabadhan ayaa labadii wariye ee wareysanaya waxay u fuuleen jaranjaro si ay qoorteeda u gaaraan. Muuqaalkaas ayaa dad badan ka yaabiyay. Sidoo kale gabadhan ayaa waxay ciyaartaa ciyaarta basketballka, waana mid ka mid ah khibradaha ay leedahay gabadhan. Gabadhan ayaa u dhalatay dalkaasi Russia. Dheerarka lugaheeda ayaa waxay gaarayaan 6 feet iyo 9 inchi. Gabadhan ayaa caan ka noqotay dalkeeda Russia iyadoo loo bixiyay aktarada ugu dheer caalamka. Xilliga ay jidka marayso, dadka ayaa isku qabsada inay sawir la galaan. Dadka qaarna waxa ay la yaabihiin muuqaalka dheerarka. Shakhsiga afaraad ee aan muuqaalkeena ku soo qaadanayno waa Nick Storbell, waa ninka ugu carabka dheer dunida aan maanta noolnahay. Ninkan carabkiisa ayaa cabirkiisu wuxuu gaarayaa 10 centimeter. Carabkiisa ayuu wuxuu ku soo taabanayaa sankiisa, sidoo kale suxulkiisa. Ninkan ayaa ah nin majaajiliste ah, dadkana uga qosliya mucjisadiisa. Ninkan ayaa galay buugga World Record isagoo loo aqoonsaday shakhsiga ugu carabka dheer dunida. Da'diisu waa 24 sano jir, ka soo jeeda California, laakiin dhalashadiisa rasmiga ah ayaa waxay tahay Canadian. Sidoo kale ninkan waa xirfadle artiste ah. 2015 ayaa loo aqoonsaday ninka ugu carabka dheer dunida. Ninkan ayaa yiri dhibka kaliya oo ay haysta ayaa ah inaan waqti badan ku lumiyo xoqidda carabkayga subaxii hore markaan cadaysanayo, waayo carabkayga ayaa saa'id u dheer, mana gaarsiin karo cadayga intiisa badan. Dadkan oo kale waa aqwaan darisna la ah, waa Ethiopian. Afka ayaa bir la gashanaya. Ninkan hadda birtu afka ugu jirto wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qofka haysta dhaqanka aduunka ugu quruxda badan. Sidoo kale ninkan marka uu gabar doonanayo wuxuu marayaa dhibaato kale. Waxaa la keenayaa meel barxad ah, kadibna waxaa korkiisa lagu garaacayaa sheedal ilaa uu jirkiisa oo dhan wada dhig noqonayo. Waxay aaminsan yihiin ninkii u dulqaata xanuunkaas iyo jirdilkaas inuu gabadhan mas'uuliyadeeda qaadi karo. Alxamdulillah, annaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa na siiyay diinta ugu macaan uguna quruxda badan dunida. Haddii aan u soo laabanno mawduuceena maanta, waxaan halkaaba Ayana Williams waa shakhsiga ugu cidiyaha dheer dunida aan maanta noolnahay. Ayana Williams waxay ka soo jeedaa gobolka Texas ee dalkaasi Mareykanka. Haweeneydan ayaa cidiyeedu waxay korayaan ku dhawaad 20 sano. 2018 ayaa loo aqoonsaday shakhsiga ugu cidiyaha dheer dunida. Waqtigii laga diiwaan gelinayay buugga World Record ayaa la cabiray cidiyaheeda
dheerarka ciddiyaheeda ayaa waxay gaarayaan 18 feet iyo 10 inchi. ciddida suulka uga taal ayaa markii la cabiray waxay ka dheer tahay ninka dunida ugu gaaban ee lagu magacaabo Jandara Bahadur. ayaa mar waraysi laga qaaday waxaa la weydiiyey inay iska jarayso ciddin dhibaato weyn sida marka aan wax cunayo, marka aan doonayo inaan magaalada aado, mashquulka dadka. laakiin hadafkayga ayaa ahaa in maalin uun la igu qoro buugga World Record. haddana ma jaraayo ciddiyahayga oo waa qayb ka mid a noloshayda. waana la qabsaday, taasina waa ii farxad aniga. shakhsiga labaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa Lalit Batidar. waa wiil yar oo u dhashay dalkaasi Hindiya. Lalit Batidar waxaa asiibay cudur aad iyo aad u dhib badan. wejigiisa oo dhan waa wada timo, xitaa gacmihiisa iyo qaybo badan oo ka mid a jirkiisa. cudurkan ayaa magaciisa waxaa la dhahaa hypertrichosis oo dadka dunida ku dhaca 3%. Lalit Batidar wuxuu dhigtaa iskool ka mid a iskoolada Hindiya. halkaas wuxuu kala kulmaa tacadiyad aad u fara badan. ardayda ay iskoolka isla dhiganayaan iyo dadweynaha jidka maraya ayaa dhagax ku tuuraya, kabacdina ku dhahaya waxaad u eg tahay daanyeer. Lalit wuxuu guriga imaadaa isagoo loo geystay tacadiyad badan maalin walba. dhashay 4 gabdhood oo ay walaalo yihiin, kuwaasoo mar walba ku dhiirigeliya una sheega inuu aad u qurux badan yahay. Lalit aabbihiisa oo lagu magacaabo Bankatalaal Batidar ayaa sheegay inuu u qaaday isbitaal weyn Lalit markuu jiray 2 sano, laakiin dhaqaatiirtu u sheegeen inaan waxba laga qaban karin cudurkiisa. laakiin Lalit wuxuu leeyahay rajo ah in wax laga qaban karo cudurkiisa. shakhsiga saddexaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa Maxamed Kaliim, shakhsiga ugu gacanta weyn dunida. Maxamed waa wiil yar oo ku nool tuulo ku taala gobolka Harkandi ee bariga waddankaasi Hindiya. Maxamed waxaa asiibay cudur la yidhaahdo giatism oo sababa koritaanka gacmaha bini'aadamka, inuu gacmaha ka weynaado qofku, weliba dhanka sacabada ama calaacasha. Maxamed Kaliim wuxuu awoodi waayey inuu ardayda ay iskoolka yihiin la qaato casharrada, waayo waxay ku dhibaataynayaan qaabka ay u eg yihiin gacmihiisa. wuxuu ka dhashay qoys danyar ah oo muslin ah. macallimiinta iskoolka ayaa ka soo cayriyey iskoolka sababo jira awgeed, waxayna waalidkiisa u sheegeen inuusan iskoolka dhigan karin, waayo waxaa ka cabsanaya carruurta kale. sidaas la'adligeed iskool kale u raadiya ayay ku yidhaahdeen waalidkiis. Maxamed Kaliim waxaa dhibaato weyn ku haysa cunitaanka iyo xidhashada dharka. labadaas ayaa aad ugu adag ayay dhaheen waalidiintiisa. 2014 waxaa rajo weyn soo geliyey Maxamed iyo waalidiintiisa nin la yidhaahdo Dr. Raja Sabati oo dhakhtar ah, isagoo yidhi Maxamed xaaladdiisa wax waa laga qaban karaa. Dr. Raja ayaa yidhi marka hore waxaan isku dayaynaa hal gacan inaan qalliin ku samayno si aan u yarayno, labadooda isku mar waxba lagama qaban karo. wakhtigaas waxaa loo yareeyey Maxamed gacmihiisa mid ka mid a, iskoolkana waa loo oggolaaday. xaafaddii iyo dunidoo dhanna caan buu ka noqday. laakiin gacan ka mida gacmihiisa weli waa sidii. dhakhtarka ayaana yidhi haddii lagu daro iyadana waxaa imaanaya xaalad halisa oo dhimasho keeni karta. shakhsiga afaraad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa Radhakanti. waa labada shakhsi ee lagu magacaabo Roniya Andonia. waa mataano isku dheggan. mataanayaasha dhasha ayagoo isku dheggan ma sii noolaadaan wax badan, laakiin Roniya Andonia waa labada mataane ee ugu wakhtiga dheer. waxay dhasheen sannaddu markay ahayd 1951 ilaa hadda oo ay nool yihiin. waxay jiraan 68 sano, waxayna ku dhasheen gobolka Ohio ee dalkaasi Maraykanka. waana laba shakhsi oo iskaga dheggan caloosha ilaa xabadka. waxay ku cadiban yihiin nolosha. markay jireen da'da 4 sano waxay wakhtigooda oo dhan ku qaateen isbitaalka. dhaqaatiirta ayaa isku dayey inay operation ku sameeyaan, balse way suurtogeli weyday. aabbahood ayaa damcay inuu inta laamiga geeyo uu lacag uga aruuriyo dadka daawashada ugu imaanaya iyaga, si uu isbitaal weyn u geeyo. Roniya Andonia hadda waa 2 qof oo dunida caan ka ah, waxayna u shaqayn jireen shirkadaha madadaalada sameeyo si ayaga loogu maadaysto, halkaasna ay lacag uga sameeyaan. balse waa hawl gabeen hadda oo waa duqoobeen, mana doonayaan in hadda wax qalliina lagu sameeyo. waxay ku qanacsan yihiin sida ay hadda yihiin. kuwaasina waxay ahaayeen shakhsiyaad ka mid a dadyowga dunida ugu layaabka badan. channelkan Sahanwade waa mid inkaha qabtiraya dhacdooyinka noocan oo kale ah. waxay noo tahay farxad inaad naga mid noqoto. walaal ku soo dhowow halkan. waa goobtii aad wax badan ka ogaan lahayd waxa dunida ka dhacayo. subscribe videogaana, like iyo share iskugu dar si uu dadyow badan oo u baahan u gaaro. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.